waxaa degan xaaladda guud ee magaalada Boorame ee gobolka Awdal, iyadoo halkaasi ay gaareen waxgarad iyo sidoo kale salaadiinta magaaladaasi, kuwaas oo qaboojiyey xiisadda kadib markii xiisadda ay ahayd mid aad u cakiran. Maanta waxaa laga soo warinayaa in xaaladdu ay tahay mid wanaagsan, iyadoo islamarkaana waxgaradkii odayaasha magaaladaasi ay fadhiisteen si markaa ay u damiyaan xaaladda guud ee magaalada Boorame ee gobolka Awdal. Dhowaan waxaa sidoo kale baaq nabadeed ka soo jeediyey xaaladda guud ee magaaladaasi madaxweynaha maamulkaasi Somalilan Ciro, iyada oo ugu baaqay shacabka ku sugan magaalada inay joojiyaan rabshadaha iyo sidoo kale ka hortagga ciidamada militariga ee maamulkaasi Somalilan. Balse maanta salaadiintii sidoo kale waxgaradka magaaladaasi ayaa booqday goobo caafimaad oo dhowaan laga baahiyey in aysan yaalin wax dawo iyadoo islamarkaana la geeyey daawooyin ku filan, waxaana la sheegay in dadka halkaasi ku dhaawacmay ay yihiin kuwo wanaagsan, islamarkaana ay tageen dadka waxgaradkii sidoo kale odayaasha ee magaaladaasi Boorame.